wuxuu yiri kanaaladii baan soo xirnay sidaan baan samaynay biyuhu meeshii ka soo fataayeen inaa ka soo xidid weeye warsaas oo dalda maantaas hadalkaas anoo siyaasiyad ahayn wallahi waa ka nax maxaa yeelay waxaan ogaa qofka Soomaaliga walaalo wuxuu kaga fiican yahay lama arko hadaa xaqirtid ana aad tiraahid jilbaha dhulka ku dhigaya wuxuu ku leeyahay jilbaha dhulka ii dhig waa laga yaabaa inay maalin ugu dhacdo laakiin bodaragba midba maalin bay qaawanta ana waa ka arsanaya ama isdheere intaad gaaraysid gaar geedkaad u gaartay mira ka soo gura aniguna waa samaynayaa buu leeyahay waxaan xasuusanaa markii madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo iyo nimanka ka soo horjeeday isku dhadhaganaayeen roogii Farmaajo ay ku soo dhaweyn jiray oo dalada ku hool dhigareyn jiray laftirkeeda inuu Muuse Biixi Cabdi inta u yeeray u dhigay marka maxaa ula jeedaa ishaysigeena yani dhibaatada dhexdeena ka jirta marna xaq uma noqonayso in la yiraahdo dawlad goboleedada Itoobiya iga yeeran ama Kenya iga yeeran anigu waxay rabtana aan u sameeyo si nimanka iyo hoos keento ujeedada Itoobiya ma aha inay fil Soomaaliya taageerto marna ma aha nimanka yani dawlad goboleedyada markay u kala yeeranaysana mar walba waxay rabtaa inay Soomaaliya la waayo oo ay ku burburto si Soomaaliya u hantido marka madaxda qaranka nimanka lagu sheego fil Soomaaliya isaga dambeeya waxaan garan waayay waxay u fahmi waayeen Itoobiya marnaba inay ku taageereen ajenda Soomaaliyeed oo ay wadaan oo horumarin ah mar badan baa marka meeshaas oo waxa iga soo baxay inaysan ayaga laftirkooda ajenda Soomaaliyeed walaal aysan wadin oo ay wadaan xukunkayga asay ku sii jooga marka aad baa arintaas ii dhibaysaa wallahi billahi marna waa arimo dhexdeena midnimo iyo isku turtur xaafadaysan weeye marna yaa maali jiray bay joogtaa maanta ana waxay la tahay maxaa la dhigay Soomaaliya xaaladeeda inay halis ku jirto qablan tala adduunye maxay kala baheer joogtay weey marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala Soomaaliya lehel lawaaba u dambeysay Soomaaliya tiraada hadii Soomaaliya marar badan agardaamo Itoobiya iyo cadawga reer galbeedku uu hoggaanka u yahay ee u maleegeen ay ka baxsatay de Ilaahay subhanahu wa ta'ala mar walba ma ogtahay mar walba haduu marku Ilaahay rasuulka biyir waa xadiid قلت قف مؤمن الله وجه لقى موضع قنينه هدي إلهي مركز متبحية ومر لبعد كاس متبحية ده دقن أذيقة قصة ومركز قدام بيسنا والجواه هي مركز تقصى ما هرنتان ده كل قفل با ضمير قد كلا كوهرت على ما قصة جوري إنك تنسي الصلاة يا دار تقنعي وكوبة خامية تقصى ما هرنتان نحن ذا يجوا كيشيا وحيسكو هيان نحنا ترى حدا هي باوي ويري Itoobiya ninkii u cararay Soomaaliya dawladeedu ka arko wuxuu u cararuna qabaa taas hal xalliye maxaa la isugu afgaran laayay waa ku socday midnimo walaalahay waana waa wax ka socda aad ba uma santa cadare bal codaynta hal mar aan ku laabto waaya 30 halka 30 qofood baa ku codaysay meesha 80 qof ku jirta war dadku gacmaha iska jareen 80 qofood baa meesha ku jirta codaynta kor saaran ilaa hadda waxa codaysay 30 qofood maya waa 80% ها و 20% ياس فليس منا والله فليس منا 20% ياس وياي فائزة سولو يا سولو أذكره الشيء قاسم حايد عدك هالك لو توريا عدك وهالك أن كر بيسارن تاي عشان كر أنا ياديك يساعدني مدح أنا كر كيسة أن وحنا صارن عبين وبهالك وحنا كر صارن ماشي موادين أي كورن تاي تابو أن كدي بوحة كوسو بحاجة ها يا مايا مركا قرالك آخرسي ويا سادالي ومركا دون سوقل على إلسي تادين دون فائس سولو خوف كستشنتي 6 دقيقة ومعناها أنا وحنا ندين بروفايد كري واي سبيس كأي 5 دقيقة رأيك أنا هذا إسكالي رأيك هذا حروة 5 دقيقة هذا ستا سولو فائس ويا فائس إمام مقشانو مالينا فائس إمام مقليس وايا فائس هذه مقلينين هوس ما ودي دونا فائس يقرأ الآن قفكي هذلنا وادجين دونا عذر يقرأ الآن هاي أدير كان أرجع مقيس أدير حبيب كعنتا كوتاجن بمقليس هذا فائس هذه مشكوشة أنا عشان تدري ما بنقرتي معي مقلين هاي أدير حبيب سولو ورود السلام يا من نمو نيكا أوديجا أو شيخ قاسم إن أصحابنا هويان يا عذر والسلام يا خيارتك له horta dhigo ariga codeynta waa madartay intaan isla gaarinba midnimo waxa leena horta mid cadar baan xoojinayo Itoobiya waa Itoobiya horta ma isbedesho dadka ku oranay Itoobiya way isbedeshay nidaam cusub baa qabsaday waxba la qabsan karaa wax alle wax ka jira ma jira Itoobiya hadaa rabtaan dadka madartay yaqaana madartay Soomaalida waliba especially Soomaalida diridaba degan baa Itoobiya taqaana dadka hada laga waraystaa moogti laakiin la isla jiboodo oo maalin baleera maanta oroma qabsato isku waxaan nahay maadar ku shitigo
حسب كما جرى إثيوبيا مصلحة بلاد هاي مصلحة دي سينا وتاريخ أي رادين يسي بقولال سنة كهر هل كان يمانتك ما درتي كهذا ليسو وقبل كأوضل حيل تفرق مجانا نيك الأورنجي حيل سلاسة سومالي وتقانو يا راديني وبقول سنة كهر موتي مركا إذا مركا قد يدقوا انتهي إنا ما درتي لقى راديو سياسي ما هاي موتي بس الشيخ محمود maxay raacday isaga friideeyay ma darteen insan wax u dhacaan waana sharxay inta isku day karo 5 minute ka MOU ga maalintii Muuse la galay horta Ethiopia hadii Muuse maadka iska badhaafay Soomaaliland aqoonsanayso waqti baa jirtay Soomaaliya lam yakun shay an madkuura ay ahayd oo ayaguna ka booteynayeen midowga Afrikana madax ka ahaayeen geeska Afrikana laga arrimin jiray oo ma dartay ay Soomaaliland hadii aqoonsi u raadinayaan ma u raadinayaan aqoonsi Soomaaliland oo ma socdaan Soomaalidana ma kala jecla way haduu maanta Soomaaliland aqoonsado waa ka hoos baxaysa mugti wuxuu rabaa in Soomaaliland cunahayo Soomaaliyana cunahayo iyaga isku isticmaalo oo marna ka soo dhawaysto marna ka soo dhawaysto cid uu ma dartay maslaxad ka raad oo haya ma jira mugti laakiin maxay ahayd maalintii ay dagaalka ka soo noqdeen Tigray region oo dhaqaalaha Ethiopia dhulka galay oo sumcad darro ma dartay ay economy haysatay siyaasadda haysatay albaabada laga soo xidhay oo loo arkay dad oo genocide sameeyay bay horta farsamada keeneen inay wixiiba dimension kale bedilaan oo angalkii laga wada hadlayba 360 kooraha kala geeyaan bay horta sheekadan u keeneen inta hadii maanta damacooga 100 sano jirsada ay rabaan Ethiopia wala qayaqaanayo dad furan saxaafada u furan maayo Muuse inta hoosta kula heshiiyaan baa la arki lahaa ciidamada Ethiopia oo loo hayo jooga bogti inta media u yeeraan boori muhiim u sameeyaan oo ciidamada adduunka dhan isku keenaan bataagnaa oo dhibaatada Tigray